sida maqlayseen waa guddiga qaabilsan xakamaynta iyo ka hortagga cudurka asaga oo dilaaga ah anagoo ka culamo ahaan shalay bayaan baan soo saarnay mowduucan ku saabsan oo dadkaan u sheegnay marka hore horta inay ogaadaan waxa inay musiibo yihiin musiibana xagga alle subxaanahu wa tacaala ayaa loogu cararaa asaga ayaa la weydiisay inuu naga faydo marka toobadkeen iyo iscafin iyo dulmiga oo la joojiyo iyo dadkoo ilaahay subxaanahu wa tacaala u noqda oo dadka xaqullaha wa xaqunnaas iska ilaaliya horta halkaas dardaarankeena markasta joogtada ah weeyaan midda labaad waxaa weeye maadaama cudurku halis uu yahay uu aadan u fidahayo diinteena muqadaska waxayna siisay jaanis bayna siisay iyo ruqsad qofka muslimka loo fududaynayo in naftiisa uusan dhibin ama dadka muslimiinta uusan dhibin walidaalika waxay culimmadu soo jeediyeen oo noo caddeeyeen qofkii cudurkan isku og inaysan u bannaanayn inuu masaajidda iyo meelaha kulanka uu tago qofkii kale xataa ay u bannaan tahay inuu maaragta iska joogo gurigiisa oo salaada jumcada iyo jamaacada ay ka dhacayso qof kastoo naftiisa u baqahaya runtii qof kasta inuu naftiisa u baqo wakhtigeedii baa la joogaa fiditaanka cudurkana aad buu halis u yahay si fudud buu maaragtay ayuu u fidayaa marka annagoo ka faa'iidaysanayna jaaniska diintuna siisay in dadka muslimiinta soomaaliyeed gaar ahaan dadka cudurrada maxaanku khatartaa qaba ama dadka da'da ah oo cudurkan aad iyo aad u maaragtay wuxuu yeelayn karo inay naftooda u baqaan oo naftooda ilaaliyaan ayaa xaq loogu leeyahay ilaahi subxaanahu wa tacaala ayaa ruqsaddaana siiyey markii laga faa'iidaysto ayaa loo baahan yahay oo qofku asagu isdhibin sida xadiidku ahaa laa darara walaa diraar qofkiina asagu isdhibo dadkana dhibo looma ogola nabigeenna sala allahu calayh wasalam wuxuu noo sheegay qofkii toon soo cuna ama basal soo cuna in masaajidka uusan imaan karin isagoo la diidayo dadka muslimiinta uu ku dhibahayo waxa uu soo cunay urkooda maaragtay marka haddii urka la diiday in dadka lagu dhibo min baabi awla qofka in maaragtay lagu dhibo caafimaadkiisa lagu dhibo shay bannaan ma aha marka talooyinka aan soo jeedin oo ahaa qof inuu gurigiisa ku tukan karo ayaan adkaynaynaa gaar ahaan dadka maaragtay waayeelka iyo dadka xanuunsan iyo dadka nugul in marka jamacooyinka iyo jamacada la oogo laakiin si kooban loo oogo si dadka maaragtay caafimaadkooda loo ilaaliyo ayaan adkaynaynaa insha allahu tacaala waxaan ku darayaa insha allahu tacaala cudurkaani dhibaatada uu geysanaya dhibaato caafimaad keliya ma aha dhibaato dhaqaalaha ku jirta dhibaato xagga maciishadda ayaa ku jirta marka ayadana in maaragtay la iskaalmeeyo oo la iska warqabo bishii ramadaana soo dhow gaar ahaan waxaan kusoo khatimayaa walaalayaal talooyinka culummadu ay soo jeedinayaan iyo talooyinka hay-aadka caafimaadka qaabilsan ama amniga qaabilsan ay soo jeedinayaan in la adeeco laga dambeeyaa waa shay waajib ah diinteenna ayaana amraysa in amarka danta guuda la kala qaato allah subxana wa tacala waa sayi lahaa yaa ayuha aladiina aamanuu atiicu allaha wa atiicu rasuula wa uli lamri minkum dadka muminiinta ahow ilaahi subxaana wa tacaala ateeca rasuulkiisana ateeca sala allahu calayh wasalam dadkiina mas-uuliyiinta ahna ateeca marka mas-uuliyiintaas hadday culamo yihiinna way hadleen hadday mas-uuliyiin kale oo dowladda ahna way hadleen marka in maaragtay amarka la qaato amarkaasna amar laydinku dhibaya maahane waa amar danta guud lagu waardiyeynayo caafimaadkiina insha allahu tacaala lagu daryeelayo cudurka asaga ah allah naga qaado subxaanahu wa tacaala inta hadda la jiiftana allah ka caafiyo inta u dhimatana allah u naxariisto wabilaahi towfiiq